gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada berbera ayaa soo dhaweeyay saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland ay siisay dowladda Imaaraadka sidoo kale waxa uu sheegay faa'iidooyinka uu leeyahay dadweynaha ku dhaqan gobolka saaxil iyo guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland kaga hadlo gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera oo maalmaha bal la hadalhayay bayska militariga ee ku soo kordhay gobolkan saaxil gaar ahaan degmada berbera aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa wax kasta oo horumar ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee u jooga wadanka ah madaxweynihii ku suntanaa madaxweynaha qaranka madaxweynihii horumarka dalka ku suntanaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa iminka maalmo dhaweyd waxaa la soo food saaray arrimihii DP Wall magaalada berbera siday ugu doogsatay waad ogtihiin maanta waad ogtihiin dhulka magaalada berbera hal inta uu marayo oo waxyaabaha madaxweynuhu soo kordhiyay maanta bayska militariga iyadoona wadankeena Soomaaliland la aqoonsan waa madaxweynihii ka dhigay in la aqoonsado oo dawladaha qaar maal gashadaan dawladaha qaar ku aaminaan ciidankoodii hantidoodii wax markaa madaxweynaha looga walwalo maahin horumarka uu wadanku soo kordhiyay aad iyo aad baan arrintaa uga mahadnaqaynaa waanu ku soo dhaweynaynaa waxa jira dad farxumo tashiil ah oo dadweynaha la daba socda ambaareyn ay madaxweynaha ambaareeyaan madaxweynuhu wadanka isaga ka mas'uula oo madaxweynaha codka ku yimiday bari ilaa galbeed codkii ummaddu sitaa dariiqa uu jeexayna bulshada Soomaaliland ay maraysaa dadka farxumo tashiilka ay dadka la daba wareegaya ambaareynta ee xukuumadda iyo madaxweynaha la daba socda dadka waxaan uga digaynaa inay cagta dhulka dhigaan waxaan uga digaynaa cid kasta oo damacda inay bulshada kicin iyo abaabul ku samayso in gacan bir lagu qaban doono oo cidnaba looga hagran doonin waxa jira dad ka soo horjeeday horumarka maanta lagu naaloonayo DP Wall markii cagaha loo dhigay dad ka soo horjeeday maanta way ku faraxsan yihiin dadkaas dadkii shalay waxa buunbuurinaya un baa maanta bayska buunbuurinaya dawladdan oo la aqoonsanay baa maanta baysas ciidan maraysa in laga furto oo lala yimaado waa ilaahay mahadi weey gudoomiyaha waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda abaareed ee gobolka saaxil isagoo si weyn uga deeriyay abaarahan si daba dheeraanaya ee ka jira gobolka saaxil iyo guud ahaan dalka Soomaaliland waxaana kamid ah hadaladiisii xaaladda abaaraha markaanu ka warano xaaladda abaaruhu aad iyo aad bay maalinta ka dambaysa way ka sii daraysaa maalin weey daruur yar baa curatay daruurtaas laguma sheegi karo wax roob laguma sheegi karo oo la oran karo waa wax dhulka ama wax ka soo saari kara ama dadku ay ka cabi karaan laakiin xaaladda abaaruhu haday noqoto galbeedka saaxil iyo haday noqoto bariga saaxil waa dhulka aad iyo aad u liita maantadaas waxa laga soo dayrinayay laas ciiliya xagal iyo dadka soo baxay oo dhinaca berbera u soo baxay oo xoolihiina ka idlaadeen gaadiidkii aanu ku celinayna si aanu u dir lahayn ayaa markaa dadweynaha qurba jooga ee Somalilanderka ah waxaan leenahay walaalihiin maanta abaartii ugu xumayd baad u ayaa haysa wadanka ka taagan waad maqlaysaan miidiyaha iyo saxaafadda inta laga wada hadlayo annagu inkastoo aanu ka hadlay hadaan gobolka saaxil nahay oo aanu ka gaabsano dadweynahayaga wixii sadaqada loo geyn karayo aanu u geyno inta saxaafadda aanu ka ilaalino haddana waxaan leenahay maanta xilligii la saxaafadda ga ilaalinayo way dhaaftay meel xun bayna maraysaa dadweynaha qurba jooga ee dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadkooga walaalaha oo soo gurmadaan ilaahayna xaaladda abaaraha ee taagan ay naga saaro ilaahay unba lagu baahi baxay ilaahayna ay naga saaran lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa dadaalka uu galay iyo sida iminka macaawinooyinkoodu ay inoogu soo socdaan qaarna inoogu yimaadeen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa guddiga abaaraha qarankana aad baan uga mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdirashiid Suul Somali Cable TV magaalada Berbera